السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد صالح عوي مركلة برياhan waxaan ilaahay ii fududeeyey inaan tuweelo barnaamijyadii aan uga hadlayay waxbarashada iyo waalidka dhowr topic baan ka soo hadlay maalmihii lasoo dhaafay wuxuu ku saabsanaa aabbaha Soomaaliyeed iyo suu muhiimka ugu yahay caruurta iyo gurigaba waxaan kaloo ka soo hadalnay arrimo ku saabsan ma khasab baa carruurteennu inay u dhaxeeyaan A oo ah jaamacad iyo Z oo ah xarig aan meel dhexe jirin halka ummadu intaa dhexe lama galabta waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo hore waxaan uga soo hadlay welina taagan dhibaatada ay ku hayso carruurta Soomaalida sii socodka carruurta waxbarashadii laga saarayo lagu soo celinayo laga saarayo lagu soo celinayo laga saarayo lagu soo celinayo taasoo keentay muxuu ahaye in carruur badan oo imtixaanada muddo fiican keeni lahaa inay grade yar keeneen qaarkood 3 sano ku qaadatay inay ku baasaan oo morally ay dhibaato u keentay iyo emotionally nintaasna ay dhib ku hayso carruur badan welina way jirtaa arrintaasi I don't know waalidku ma garan karo waxay saa u yeelayaan waxaa taa xalkeedu yahay please longi balan baa loo baahaya cunuga year 8ka ah ama year 9ka aad ka kaxaynayso UK haddii ay jirto dhibaato ama cunugii aad u cabsato muxuu ahaayey naftiisii aad u cabsato ama yangii culture uga cabsato ama diinlaan uga cabsato taas sax baa tahay laakiin cunug fiican oo nafsada oo edebl oo akhlaaqdiisa fiican tahay dhibadiisa fiican yahay baa waxaa maqlaysaa gid baa loo jira xataa cunug la weydiin maayo gabadhaha ka mid a weligii gabadh waxaa maqlaysaa daarusalaam muqdisho kenya carruurtii markaas waaga u baryaya waxaa marka ku taliyey horan u sheegay ku soo celinaya please make sure ilmahaasi GCSE-da aad ka kaxaynayso waa inuu qaataa marka dil isu qaato meeshaa rabto ka keen adeeg jirtaa kasi ninkaa mas-uuliyadda qaatay waxaan macquulayn inaad tiraahdo sanadkii imtixaankaa soo celinaya inuu galo imtixaanka walaal cunugaan ka soo qaato tofshed buu hayar buu geli lahaa waxaa la hayaa year 7kii markuu geli lahaa year bilaabi lahaa la kaxeeyey November GCSE-da lasoo ceshay sanadkii iminka dhammaaday iskoolku yiri 2 maadaan ku siinaynaa ka badan kuma siin karno 2 xagigine ciddi mataqaan waxaan kula taliyey 10,000 kaashaa loo baahan yahay inaad diyaarisaan oo maxaad ku qabanaysaan next year kuleej baad geenaysaan 5 maadaan la diyaarinaysaan cidni lacag ma haysano wiilku 5 sano iyo 4 sano iyo bar buu maqnaa example khatar wuxuu ugu jiraa inuu kuleej ka tago foundation lagu celiyo functional skills lagu celiyo wala sigaar cabayo loo geeyo halkaasna uu wiilka hoos u dhaco xabsi gola inaga mas-uulkaas sooma taas waa mid taas xabbi u baahan tahay marka waxaa laakiin haddaan qorshaha madaxa ku hayno ah bir shaarta kala baxin maadan dhalay cunugaygu maalintuu 17 jiro waa inuu GCSE haystaa ay GCSE waa hadduu ahaa qof wax baranayo oo aad hadda ka qabto inuu meel gaaro ugu yaraa halkaas gaaro waddanka ingiriiska waxaa la yidhahdaa ilmuhu hadduu GCSE iyo maths iyo English uu grade B haysto in grade B waa 6 good 6 it's okay you can go anywhere you want hadduu rabo jaamacad iyo ahdin hadduu rabo A level iyo ahdin laakiin maanta uu rabo GCSE soo soco dhowr group baan rabaa inaan galabtay aan idin kala share karayo kow 2 qolo gabdho iyo wiilal ah oo GCSE ka baxay laakiin buundiyar kaga baxay grade 2 grade 1 grade 2 grade 1 grade 3 laba middaa keenta marka cunugu inuu gradeka ku baxo behavior oo ah wiilasha u badan cunug targetkiisu 7 ama 2 ga baxaya 4-5 years wuxuu ku dhammaynayaa meeting iyo BSP iyo cayrin iyo ribor
sababtuu saa u yeelaayo guriga boqolkiiba 56 weeye. hooyo keliya, aabbe maqan, carruur badan, guri ciriira, dhaqaale xumo. That's the reality. ilaa ilaahay intuu ka reeba maayo. cunugga dhibta haystaa waxa weeye emotionally settle maaha. inagu biniaadamku waxaa la yihahdaa EQ waa emotional intelligence and IQ waa fahim weeye. boqolkiiba 20 baa looga baahan yahay human beingka, boqolkii 80 waxa weeye emotional intelligence, waxa weeye garaadka qalbiga. ilmaha waa inuu faraxsan yahay, waa inuu isku kalsoon yahay, waa inuu haystaa waxa la yidhaahdo high self esteem. high self esteem waxaa la ixtiraamu nafsi weeye. high self esteemka ilmaha waxaa la yidhahdaa la amaano, la soo dhoweeyo, la ixtiraamo, laga farxiyo, rewardka la siiyo, dad jecel ku soo kora. ilmo kalsooni haysta weeye, ilmo faraxsan weeye, ilmo rajale weeye. ilmaha ku soo kora canaanta joogtada ah, ilmaha ku soo kora fayliyarka iyo guryaha laysku canaanto dhibtu ka taagan tahay, ilmaha ku soo kora nolosha meelaha dadka faqiirka ah, ilmaha meelaha umudaha kale oo ay degan yihiin, ma garanaysaa, noloshu aad u hooseyso. ilmaha role modelkiisu yahay kan fashilay, ilmaha waalidkiisa dhaqaale ka raacdeen. ilma waxaa soo baxaya kalsooni badan aan haysan, aakhirkana depression baa ku dhaca. They fail before they start. kalsooni ma haystaan. labadaba waalidkaasaa kowda hore laga rabaa ilmahooda meeshii marin lahaayeen, inaad soo saarto ilmo isku kalsoon iyo inaad soo saarto ilmo. waxaa laga sheekeynayay 3 qaybood oo waalidiinta ah: aggressive waalid ah, permissive, iyo authoritative waalid dhexe. waalidka marka waxaa la kore oo authoritarianka ah, dictatorka ah, ilmaha amar buu ku koriya. guriga is okay. ilmahaasi mustaqbalka instructionkii buu u baahan yahay waalidka, bulshadana wax ka lama qabsan karo. kan permissivekana waa mayax, ilmo wuxuu rabaa faraha looga qaaday, hadhow dhib bay u keenaysaa. laakiin ilmaha dhexe oo waalid qawi ah, oo laakiin maxaa la yidhahdaa, waxaa la yidhahdaa 3 waxaa jira waxyaabood, 3 stage. waxaa la dhahaa qof adag oo aan naxariis lahayn, qof adag oo naxariis leh, qof jilicsan oo aan naxariis lahayn ama leh ka softy waay. labada waa negative ayada. qofka aad adag aan naxariista lahayn ilmuhu koriyo dhib bay leeyihin, cabsi buu ku qabanaya shaqada. kan naxariista iyo jirjaleecuna amarkiisu ma shaqayn doono. very soft, meel dhaxal la keenay. fairness, strong but fair. waxaad gudbin xaqooda sii, laakiin borderline waa ina jirto. kan naxariis male, waana ad adag yahay. naxariisna male, waana dictator. kani waa naxariis laakiin waa soft, meel dhaxal raa. marka waaqac inaada ka badin. yes saas, laakiin maxaa la socda jacayl iyo hoojin waxyaabo inaad la shaqayso ilmahaaga, uu og yahay inaad wanaajinayso. haddii kale kaas xagga markaad dhimato ama socoto beertu galaya toos, kana sababti buu noqon doonaa. lama rabo. carruurtaa ku soo noqon kuwii kuleeja ka baxay iminka 17 aaday, gabdhaha jira tusaale ahaan tuugaasay keeneen. kuleejkay tageen, waxaa la yidhi 16 retake functional skills baa dib loogu celiyey. 2 sano ay wareegeen. hooyo aabahooda war uma hayaan, buugga uma fiirin, tuushin looma qaban, imtixaankii dib loogalama shaqayn, lama caawin. 3 sanay saa wareegayaan. gabdhahaasi waa ambitious, nurse bay rabaan, health and social care bay rabaan, teacher bay rabaan, inay wax bartaan bay rabaan, laakiin ability wise not good point. waalid caawina ma helayaan oo macallimiin u heli maayo dadkood. shilin ma ogolin bixiya.
xag bado iyo safaro iyo hawlo kale iyo waa economical family waa family dhaqaale u yimi meeshaan gabdho badan oo ka mid ah mental illness baa ku dhacay warkaana haya maxaa la yidhi jim baa ku dhacayo waa la sixray waxba kama jiraan I have example I know anigu waa ogaa anigoo la taagan waalid ka mida waalidiintaas oo wuxuu yidhi miyuhu gobol baa la geeyo jim baa ka hadlay gabadhay waa sax jimka waa sax qur-aanku waa sax laakiin muxuu yidhi iyada oo muddo dhoon bay shalay kuleejka aadayo iridiisa ku suuxday laakiin muxuu ku daray gabartiba jilac israaceenoo biyey wax ugu dareen iyuna waxay gabadha ugu socday iskoolka banaankiisa 3 sano imtixaanna ku dhacaysay waxaa la hayaa gabdho hooyooyinkood ka qariyey imtixaankay dhaceen oo annagu aan hoos hoos ula shaqayno u baasinay tuition aan looga siinay true story way sida ku dhici kartaa maadaa imtixaan dhici kara waxay ku leedahay gabadha day star bay keentay marka waa in la xambaaro soo soco gabdhahaas waa kaas oo maxaa tala ah gabdhahaasi hadday grade 3 iyo 2 kaga baxaan yaan lagu hadlayn retake waa in ugu yaraan midiiba 20 cashar waa in ilaa 2,000 oo kaasha lagu bixiyo oo la soo qaado gabdhahaas haddaan rabin baas waxaa ka socda wiilal oo iyagu behavior darteed u keena gradekaas ruurteenna waay kuleej caadiyaan loo dirin haddii kuleej caadiya loo diro ku dhahoyo I will do retake yeah maths English GCSE oo afka wax loogu gurayay baasi waayeen ma kuleej la leeyahay hore nin weyn baatay isdabir bay baasaya maya sanadku okay sanadku waa tatakan laakiin sanadka labaad waa inaad ka leexso leenkaa tiraado okay tii level baa soo baxada mechanic iyo u dir iyo plumbing iyo electric u dir halkaa ha maro hadduu rabo GCSE hala wado waxay ku leeyihiin wiiga diiday midku hadduu xiran yahay ogtaadi oo halkaa qof maro oo aad tiraado jidkaas waa xiran oo kaa diido soo sugmayso inuu kugu soo noqdo labay noqonaysaa inuu kuleejka aado midi qaato bari qof dilo ama la xiro badankood saasay noqonaysaa waayo habkuu socday ka caddahay iyo inaad ka leexiso ninkii farsamo iyo u leexiso meelo kale weliba kuleejooyin soomaalida aanu ku badnayn oo halkaa laga saaro within 2 iyo 3 years time nin shaqaystuu noqonaya fikadaha mentalina fida physically fida iimaanna fida saddex hala ilaashaan iri anigu iimaanka hala ilaasho maanka hala ilaasho raag iyo jinni bodhigna hala ilaasho yaan lagu tooriyeyn in meeshaan carruurtaa dhignay ku xiran tahay kuwaas waa qolo carruurteen inagaa dhalnay kii dhakhtar noqon karana waa inaad caawin karto kii dhakhtar noqon karinna waa inaad tirahda kan waa caddahay dareen walba ku fiican yahay waraa laysiga 5,000 ana bixin qaado soco laakiin kulli dhakhtar baan rabaa kana wuxuu leeyahay inuu dhakhtar ma noqon karo beertaan galaya meel dhexe ma jirto tan ka hadlaya kuwaas waa qolo laba qolo kala jirto gabdhay wiilala yaa waaye qolada waddanka yimi iyagoo jira 15 16 17 18 19 every day waa la imanaya waddanka maxaan nidhi every day waa la imanaya maalin kasta waa la imanaya taas waxaan ku taliya idiin sheegaya tala ka fiican dadiga cilmi badan baa buuxa aniga haddii hadlaayaan waxaan ku taliya idiin sheegaya gabar horta kuleejooyinkan aan ka sheekeynayo kuwa GCS aadaan iyagu badanaa GCS sida laga aado waa shaqa kuma leh yaals wareerin kuleejooyinka adalta kuleejka ah oo resourceska magaalo kasta kuleej caana jirta Leicester College Liverpool College magaalo kasta kuleej Maine jirta oo weliba jaamacaduhu qayb ku leeyihiin adult education from 16 plus kuleejkaasaa geynaysaa interview baa laga qaadaya maxaa rabtaa haddaa Soomaaliya ka yimi 17 baa jira salaam maxaa rabtaa mustaqbalka gabar baan ahay waxaan rabaa health and social care okay assessment baa laga qaadaya functional skills baa laga qaadaya they see how much I can go maybe level 2 level 1 waxay oranayaan okay hal sanaan ku diyaarinaynaa English maths IT sanad dambena level 1 functional skills waxaan ku siinaynaa health and social care la faa'iida marka
gabadhaasi halkaasay ka baxaysaa professional coursekeedina waa heshay 2 sano 3 sano soo socotana waxay koonfargaraynaysaa xisaabtii iyo ingiliishkii 3 sano ka bacdi gabadhaasi ama btech bay wadataa way shaqaysanaysaa ama jaamacad bay gelaysaa iyadoo weli wadata GCSE maasha allah 3 sano ka bacdina arooskeeda ka qaybgeli doonaa insha allah wiilkana sidoo kale wiilkaas Soomaaliya 17 18 kaga yimi anigu dhakhtar u dirmaayo haddaanu wuxuu bilownayn waayo ma rabo inuu fashilo aan fashiliyo maxaan samaynayaa meeshii baa marsiinayaa gabadha wuxuu odhanayaa anigu waxaan rabaa plumbing inaan barto ama mechanic barto ama engineering baan rabaa assessment ka qaadaya waxay okay sanad iyo 2 sano ku diyaarinayna sanadka labaad ama saddexaadna waxaan kula diyaarinayaa professional course waxaan rabtaa inaan barato halkaasuu ka baxayaa maxaa faa'iido ah by the time uu 24 gaaro labay noqonaysaa inuu shaqo tago iyo inuu jaamacaddii sii wato hadduu shaqo tagana waxaa weeye guursado faamil noqdo isagoo 30 jir ah part-time university u samayn kara haddaadan marka saa u jihayn marka oo kulleej halkaasoo qola fashisha joogto ah ka tuurto ilmahaas iyagaa macallin u noqonaya wiilkii quruxda badnaayo 18 jirka ahayoo xaafid qur-aanka ahayoo xadiista hayay 2 sano markuu waxa ku dhex jiro isagaa ugu horrayn doona kuwa xabsiga gala innagaana mas-uuliyadda iska leh anigu hadda waa sheegay nambarka maxaa la yidhi 1 to 10 1 2 3 4 soo iskuma xigaan haddii kale maxaa la yidhi kubadda maamaha ingiriisaa jirta kubadda waxaa laalaamiya ku tuur si wad happen baabuur ma macsiiyey ma u goysay warmahayn ilmahaas aan ka sheekaynayo labada qoloba kuwii GCSE-da ka baxay oo bundiyar keenay iyo kuwa iyagoo teen-age yimi labada qoloba 5 sano soo socota waxaan ugu talagalno iyo qorshahan dejinno oo lacag leh oo tale leh ayay ku xiran tahay si ay u ekaan doonaan 6 sano ka bacdi wiilkan akhyaarka keentay oo hadda quruxda ka muuqato Soomaaliga ah oo muslimka ah 6 sano ka bacdi maxaa rabtaa suu ekaanaya ma nin dheero wuxuu siyaada iyo diin baa rabtaa iyo aqoon mise waxaa rabtaa ninkii oo timaha tidcada iyo hoos u noqday aad tidhaahdo see yeelaa kuleeg baan geeyeyo odagiina ma joogo galaayuu raacay waa la khasbayo been baa laga sheegayo dukaan buu dhacaa la yiriyo midi baa boorsada lagu ridayo sigaar baa lagu ayeelayo been weeye halkaas aaro doontaa mogtaada haddaa la rabaa inaad ka leexayso waxaas oo dhan haddaa la rabaa inaad ka leexayso haddana war badan waqti badan ma hayaan ka sheekeeya halkaa markuu ka soo wadda waalidiin badan baa la wada talo ilmuhu halkaa markuu ka soo dego waa in qorshaha la dejiya waa u jeednaa 6 sano ka bacdaan noolnahay waxaa la yidhaahdaa futureka horta waa inay ku caddahay indhahaaga hadda inaad ku caddahay saa rabta qofkaas inuu ekaado futureka waxaa la yidhahdaa miiskaa la keensada haddaa laga shaqeeyaa ku diyaarsan yahay naqshadaad yaqinaysaa waxaa laga sheekeynaya waxaa la yidhaahdo strategic learning wax hadda ka sheekeyna waa strategy bare waxaa ka mid ah anaga wuxuu odhanayaa aniga yarteen waaye wuxuu odhanayaa GCSE-da maths waxaan rabaa grade 9 to get grade 9 maxaa laga rabaa horta waa inaan haya tusaale ahaan strategy baan ka sheekeyna wuxuu odhanayaa waa inaan tuushin tago waa inaan maalin kasta 2 beebar ka shaqeeyo waa inaan intaasoo saacad xisaab ka shaqeeyo xisaab ka shaqeynaa fiiri target buu haystaa shuquu gelinaya marka hawl buu qabanaya waxaan macquul ahayn qofku inuu yidhaahdo waayo target la-aanna meel lama gaaro waxaa la yidhahdaa waxaan target lahayn lama gaaroba marka hore target kaa horeeya ka soo qaad waxaad tiri galabtay waxaan rabaa inaad 10 boos soo urursado from zero targetkaagu muxuu yahay 10 5 6 7 8 9 10
كور هذا حط حق له كور سوني ودالي وصيحة عاو استراتيجي كان استراتيجي labadaa qolaan sheegay carruurta intii iyagu wax barta socday labadaa qolaan sheegay labadaa waxaan rabaa inaan diintooda fikiyo skiil ay ku shaqaystaanna loo sameeyo loona ilaashiyo faaligooda dhaqankooda traditionkooda iyo luqadooda loo ilaasho hawl bay u baahan tahay iska iman mayso maamaadi ilaahay afar waa wada mase yeelo ilaahu cibaadaysan maa yahay cadaabin ilaahu xoogsan maa yahay xoolaysii ilaahu guursan maa yahay gablamin sunna kawniya waaye in wax barto aan waaye inaan shaqaysto waaye halkaasaa irsiq laygu diray shiikh baan dhegeysanaya waa iga dhumay artikelkaas ilaahay shaqaan weydiistay buu yiri ilaahay shaq way abuuray ilaahay carruur baan weydiistay ilaahay gabadhii buu ii abuuray ilaahay caafimaad baan weydiistay ilaahay dhakhtar buu ii sameeyey buu fiirso challenges adigaa shaqa lagu diray fiirso laakiin haddaad tiraahdo boorsadana way xirxiran tahay wiiga damaan guuraynaa 40 sana waa maraysaa wax ka socon maayaan waxaan taa raacinaa kuleejooyinka la tago kuleejooyin waxaa jira mar kastaba meelaha centralka aad loo joogo kuleejooyinka aad loogu bato waad nayn baa yaalo badanaaba dadka qalad baa la iska fahma waxaa lagu fahmaya cunugan meel uma socdo goor suubadaabaa waka tagaa waxa iga tala ah mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay kuleejo bannaan xoogaa ka fog dhexda centralka ka fog oo aan laynaka aqoon dad badan laga aqoon oo xataa caddaanku waa ku badnaadaan waxa laga barto cunugiina geeya you know why role model dad dadaal ayuu helaya wuxuu kaloo u tegayaa dad aan ku aqoon oo hadda ku baran doona fiirso mararka qaarkood dadku waxaa jira macnaha prejudice buna ingiriiska qofka wuxuu aaminsan yahay you somali for example kaas wuxuu arkay qolo kale oo laalaa badan laakiin markaa tago meel aniga kow aan ka ahay ama in yar akhyaara joogaan you are good people lalay oranayaa saa daraaddeed meelaha lagu badan yahay oo aad loo sheego carruur aad u joogaan oo caanka ah mararka qaarkood waa laga wareegsadaa waayo ku caawini mayso carruurtada caawini mayso kuwii joogana kuwaan ma caawinayaan meeshana magac ayaa lama fiicina sidaa daraaddeed waa inaan environment la sameeyo arrintaa secret waay oo sir ah hoos oo la socda inkastoo hadda ninbaa wuxuu yiri sir hadda maba waxaa sheegay laakiin meel ku haysta maaha macalin salax baa yiri intay ka bacda hadhow iskool baa maaha xigmad yar baa ku jirta halkaas wiilashaa ka sheekeynayo iminka 18ka 19ka jira 9ka jira waxaa kaloo la mid ah dhalinyarada already 20 gaaray 20 gaaray oo waxbarashada kusoo xumaatay oo kuleejooyin kusoo wareegay oo guryaha jooga maasha allah oo iyagu haddaan dambiyey gelin oo jooga kuwa ruuxooda noloshaa ka xumaanaysa gabadhi ka yareed baa jaamacad gashay wiilkii ka weynaa baa inta ka baxay iiganiinta ka xumaanaya naa kuma rabto maxaa talayga ah lacag inaan gelino waay security inaan lacag ka bixino laysinka inaan lacag ka bixino short course inaan lacag ka bixino maxaan ku oran niyaddaa ka xumaanaysa waa khatar waa in lagu yidhahdaa hooyo tarda gabadha beejkiida wadataa kuu guurinaya nin ragaata adiga niyadda u dhismaysa isagaa marka waxyaaba motivationka laga sheekeeyey aad u xiiso badan waxaa ka mid ahaa nin PhD qaatay waa dhacasumay waxyaaba igu yaab badnaa kuleejooyinka dhacay maxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi wiil baa ii sheekeeyey wiilku GCSE buu ku dhacay iska dhalinyaro iska ahaa grade 3 grade 2 cheat up me yeah qorar badan kuma hayn bayska ahaayana weelkii maalin dambe gabar qurad badan buu arkay oo qaris ka soo baxaysa wiilkii jamaalkaagu inay yahay wiilkii maalin dambe gabadhi biology chemistry samayso wiilkan group buu ku jira grade 3 2 baa la wataa get out
hadaaba sheegaya waxbarasho wiilkii gabadh wixii walaahi digiis waa ku jecel mustaqbalkina guursan raa waxay tiri ku sheegaa ani ma jecesha haa inaa guursi ma rabtaa digriiga engineering jaamacadda digriiga la yidhaahdo markaa sanadka labaad marayso ii imow anaa aabbahay ku geenaye balan miya ahaa guriguu tegey qolbuu isku xidhay qolkii qalbi qaatay go'aan buu gaaray wuxuu ku gaaray go'aan inuu ka haro horta saaxiibadiis wuxuu go'aan gaaray imtixaanada inuu soo socdo inuu baaso wuxuu go'aan gaaray inuu A levelkaas maadadaas sameeyo wuxuu go'aan gaaray wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi dhibtii iigu badneyd waxaan kala kulma saaxiibaday iyo saan u dhex bixi lahaa aan shaneemo aadno soo lugayno maqaayadaan aadno wari dhaafaaliniyo fiiri gabadhaas baa qaada ninkaas sanadkii labaad markuu marayay waxay tiri waa ballan inaa xataa qabiilkaa lagu diin bay gacanta qabatay ogeysa aabbaheed sidii baa loogu daray marka marka qaarkood waxaan keenay gabadhii beej idaan keenay yaan la oran hadday ninkaan wax baran gabadha ida haddana dagaal kale yaan inaan gelin wiilraga waay motivation buu u baahan yahay ninka raggaana marka caawinaad u baahan in la caawino in la investment garey waay 5,000 aad geliso wiilkaaga maantay milyan bay ka qiimo badan tahay maanta garanaysaa mushe arrintaa muhiim haddaydnaan marka cilmigeedi lahayn arrintaa bliis dadka expertiga kala tashada adduunkan ma jiro iska soco ma jiro cunug baa ii yimi oo kuleej baa lagu qoray ma jirto waa inaan garanayno 2024 soo ma aha plus 7 31 gurigaagu saarabtu u ekaan doonaa haddii kale qorshe la'aan strategic qorshe waa ku soo celinaya dhallinyaradaas iyagoo waaweyn imanaya yaan laga tuurin meelahay ku wareereen carruurtii ka horraysay waa in khadad cusub loo jeexo waa in farsamooyinka halkaa maraan waa in taargetkoodu yahay skiil ay ku shaqaystaan loo diyaariyo taargetka koowaad university ma intay sii wadaanna baartatay ma shaqaystaan laysinkaa loo qaado baskaa loo qaado securityga loo qaado waxaba waa lagu shaqaystaa anoo professora security noqonayan weeshaan ka imi keena kibirka isla weyneed waxba kama jiraan raash weeye ninka nin facaya professorka shaa ka bixinaya ma jirto ya who knows me aniga professor anahay cleanan tagaa daan waa subaxda clean 7 pound per hour wey indii meesha loo 7 pound waa millions marka su'aal maryolo uga sheekeynaya Soomaali hadda kulli jaamacada ka baxeen wiilasha yara islaamaha keerka biila iskeeni mayso waa inaad shaqayn karto waa inaad at least pocket money-gaaga soo saaran karto kuwa video cajaladaas soo socda waxaan ka hadli doonaa hashaan la maalayo hooyada ah doontaan aan wada fuulno hooyada ah gurigan weyn oo lagu jiro hooyada ah dowladda Soomaaliya hooyada ah goorma MOT ugu dambeeyey abuurta waa aragteen gaaskaa laga bedelaa hoolyadaa laga bedelaa oo shaag baa laga bedelaa oo MOT baa la saaraa oo dhaxalkaa laga dhaxal Rostin waxaan ka hadli doonaa hooyo 15 sano ordaysay waan warisu haynoo dhiiggeedu karay oo sokorteedu intaa marayso oo aakhirkaan warisu haynteedii laakiin carruurka daba ordaysa oo teedii ilowday cajalada soo ka hadli doona insha allah raalli ahaada waxaan qabtay nafteeda shidama shaqo ku leh waxaa wanaajiyana ilaahay haynu ka anfaco ustaadkiini mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu